ardaydan ayaa waxay wax ka baranaysaa qaybaha kala duwan ee jaamacadda culumta caafimaadka ee Shifa Health Science University. qaar kamid ah ardaydaani oo imtixaanka u fadhiisatay oo la hadlay TV-ga Sam News ayaa waxa kamid ahaa hadaladooda. Bismillah, magacaygu waa Raqiib Ismaan Cabdi. waxaana kamid ahay ardayda dhigto jaamacadda Shifa ee sanadkii ugu dambeeyay ee semesterka afraad. maadaama imtixaankan uu yahay sanadkan ugu dambeeyay ee semesterka imtixaan aad u fudud wahay macnaha oo fiicnaa imtixaanka waxa ugu mahadcelinayaa ugu horeen Allah subhanahu wa ta'ala ku suko waalidiinteeda dan jaamacadda Shifa Health Science gaar ahaan professor Umar Ibrahim ustaad Umar Hani dan ku xigeenka ustaad Durdur iyo dhammaan macallimiinta. imtixaanka maanta u fadhiisana waa imtixaankii oo kaadwana Allah imtixaanka maanta u fadhiisanay imtixaanka bisha la galaayo imtixaan kale waa fudud yaa la dhimaaya imtixaan sidiisba imtixaan markii lagu dhaw wax magacaaga xataa kaalmaaya marka laakiin ma sha Allah iska fududaa imtixaanka hadda biriyaan ugu dambeeyay hadii la yiraahdo anagoo ah ardayda sanadkan ugu dambeysay jaamacadda cilmiga caafimaadka ee Shifa maanta waxa inoo soo gabagabay inoo soo dhamaaday imtixaankii ugu horeeyay ee sanadkii afraad sidoo kale jaamacadduna ay garab taagneed muddadii 3 sano ayada wax soo baranaynay imtixaanka wuxuu inoo soo dhamaaday si farxad leh oo guul leh waxaan hambali wada diray dhammaan ardayda jaamacadda oo imtixaanka u soo wada dhamaaday qaybahooda kala gedisan sidoo kale waxaan mahad iyo u dirayaa iyo bogaadin jaamacaddeeda si kastoo ay rabto inay mustaqbalka meel shisheeye u gaarto. maanta waa ku faraxsanahay in macnaha maaragtay aan ka qayb galay imtixaanka waxaana ay tahay sanadkii macnaha ugu dambeysay soo marka aad ayaan u faraxsanahay macallimiinta ayaa u mahadcelinaya gaar ahaan ustaadiinta kamid ahay ustaad Durdur iyo maamulaha gaar ahaan ustaad Umar Hani. anigoo magacay Faadum Xasan Maxamed oo dhigto jaamacadda Shifa Health Science University ma sha Allah maanta waxa aad u faraxsanahay imtixaanka aan galnay kaadwan waxaan rajaynayaa dadka anaga midna inay sideen camal noqdaan ee dunida qurxiyaan. sidaad wada jeedaan maanta waxa ka soo baxnay waa maalintii maxaan ku dhahaa shanaad imtixaanku noo socdo insha Allah imtixaankuna wuxuu ku socdaa yani si heer sare ah oo aan ku qanacsanahay aan ku wada faraxsanahay ma sha Allah hadda waxaan ka soo baxnay imtixaan sanadkan waxay tahay sanadka saddexaad semester 5 saad u jeedaan waa calaamadaha ka muuqata qofka markuu semester walba qofka semester sanadka waad markuu yahay hal calaamad uu leeyahay sanadka labaad markuu yahay laba calaamad sanadka saddexaad aniga hadda waxa sanadka saddexaad marka waxaan rajaynayaa inuu imtixaanka saan noogu dhamaado. aad iyo aad mahadsantiin waxaan ahay arday kamid ah dhigata jaamacadda Shifa Health Science University waxaan ka bartaa nursing waxaan ahay ardayda semesterka koowaad ama sanadka ugu horeysay aad iyo aad aan faraxsanahay jaamacadda inaan dhigto sidoo kale imtixaanka ugu horeeyay aan galay jaamacadda. Dr. Cabdiqaadir Cabdulle Cusmaan Durdur oo ah agaasimo ku xigeenka jaamacadda culumta caafimaadka ee Shifa Health Science University oo la hadlay TV-ga Sam News ayaa ka warbixiyay ama sharaxaad ka bixiyay ardaydan u fadhiisatay imtixaanka qaybaha kala duwan ee imtixaankani uu ka kooban yahay sidoo kalena wuxuu ka hadlay kadib koroonihii isbedelka ku yimid waxbarashada jaamacadda Shifa. maanta ayaan soo gabagabeynay imtixaankii sanadkan maadaama laga soo noqday fasaxyadii jaamacadda sanad walbana xilliyada semesterka uu bilaabanayo marka uu bilaawdo muddo kadib aan qaadno imtixaan tijaabo ah oo ardayda heerka ay marayaan lagu kontroolayo si loo kala saaro ardayda heerka ay marayaan imtixaankooda natiijo fiican laga rajeynayo hadii Ilaahay yiraahdo. jaamacaddan waxaa la aasaasay 2006 iyadoo macada la aasaasay 2013 jaamacada laga dhigay waxaana loogu talagalay inay soo saarto kaadiriinta caafimaadka Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay dhibaato fara badan ay ka dhacday kaadiriinta caafimaadka ay kala lumeen waa jaamacadda kaliya ay isku keento inay meel isugu keento kaadiriinta caafimaadka Soomaaliya. jaamacaddu waxay soo saartaa kalkaaliyaal sare iyo umulisooyin ay soo saartaa oo post basic ah kuwaas oo ka soo qalin jabiyay jaamacadaha dalka si ay ugu sameeyso degree sare oo midwifery ah
saas ayay jaamacadda u shaqeysaa imtixaanad adag ayaa hadda la soo maray ilaa 200 oo arday gaaraysa ayaa imtixaanka u fadhiisatay 24 bisha maantana imtixaankii aan soo gabagabeynay waxaan u rajeynaynaa ardayda inay natiijo fiican iyo meel fiican ay gaaraan Farxii Maxamuud Yusuf Samnius TV Muqdisho